Brother, enjoy it. Welcome home, my brother. Aad iyo aad aan umahadsantahay. Thank you for you coming. Of You know, course. anay maalin u tahay dadkan. So marka badanaa dadka reer Malaysia maanta dhan waa jiifaan. Haddii aan ma horta isku ogaa. Sah. By the way, I'm happy for you guys. Yeah, thank you so much. And aad iyo aad aan umahadsantahay. Enjoy it, my brother Kenya. Waa istaayisha, brother. Maanta Inaan hurdada loo soo khasaariyo. Legend aad tahay, kabtankeyga aad tahay. Waa ku aaminsanahay. Khasab waaye. One day hurda adag ku khasaartay macluumaad ma sameynaysa. Ada waa fiican tahay laakiin dad micna intaas garan waayeen. Weli xitaa hurdada isoo quuri waayeen. Easy waaye. Waxa habeenkii dhan ay laastiga taagay. Waa tuurtaan. راح مكان دالنت معه والله مكان مقصود أو ذي زيارة ضبطينا dhib ma lahan inta daalina dhib ma lahan laakiin waxa ka muhiimsan enjoy asxaabtiisa maadaama asi oo imaaday waxay ka dhigan tahay ayko imaaday Khasab waaye. iyagoo soconaya ayko u taagan yahay safiirkooda waaye marka dhib ma lahan ayka safar dheer ay soo galeen 190 kuna mitishaamiya 190 kuna mitila safiirkooda waaye marka 2 daqiiq inaa la hadlo daal ma ugu qaadanaysa aad iyo aad u mahadsantihiin sida quruxda badan ay u soo dhaweyseen insha Allah isla joognaa waqti badan waa qaadanaa kulli dad isku cusub mani mugta aad iyo aad u mahadsantahay sidoo kale kabtan. Take care, my brother. Inkastoo aad daalan tahay FM-ko yar haddii aan sawirado yar oo qurux badan aan galno see u arkay adi adriishadan iga qaadayo anaga enjoy isla galna mafaham see u arkay waa loo baahan yahay bas diyaar waaye sawirka caadi waa amiirkan enjoy waaye maho enjoy ka dhig anaa sawirad enjoy uga dhigaayo okay adana qaadis anaa niga qaadaa telefoon kale noo qaad telefoon kale noo telefoonka enjoy bas hay sawiraan galina hay ana xataa oo baahnaa baa hilmaan waxaa joognaa aeroboortka Malaysia hadda Nuuridiin waxaa laga qaadayaa sawiro qurux badan laga qaadayaa oo ah kuwii oo ku dhigi lahaa movie hay hadan action kale ninkii enjoy ahana waa kana sawiradu ka qaadayaa Ismail waxaa sawiro qaado aad u weyn waaye sawirkii aadka u qurux badnaa hadda gelayaa enjoy waa sawir qaade aad iyo aad u yaqaana khibraddan xafladaha buu duubaa aroosyada buu duubaa barnaamijyada aadka u waaweyn ee Malaysia waxaa duuba team enjoy waa team aad u yaqaana xirfadooduna tahay inay sawiro wada galaan hadda waxaa gelaya lamaanaha aadka u quruxda badan Nuuridiin oo maanta soo degay airportka soo degay hadday gelayaan sawir Nuuridiin caadi ma aha safarkiisa waaye diyaarad waa soo degtay atriishada waa waxiisti sawiraan galgalayna ay tiri sawirada enjoy aan ugu dhigoyaa ma fahmino amiirkeenan enjoy meesha ayubi aad u daalan yahay Nuuridiin wuxuu sheegayaa inuu hadda daalan yahay laakiin atriishada waxay ku khasbaysaa inuu sawiro xasuusa la galo oo taariikha maadaama uu ka maqnaa waqti aad u badan waxay aad ugu faraxsan tahay inuu saygeedii usoo noqdo oo wax badan ka maqnaa waxaa dareemi kara lamaanaha kala taga oo macnaha kala aada laba wadan oo iyagoo wada nool inay laba wadan kala aadaan enjoy waaye hay 1 2 3 this is the most beautiful here enjoy markay waxaa dareemi kara dadka lamaanaha ayuu kala maqan waxaa dareemi kara dadka ku kala nool labada wadana qurba oo isu yimaada oo wax weeyaan kala noqda shaqo kala noqda iyadoo ay keenayso daruufuhu inay shaqo kala aadaan ama gabadhu aado ama ninku aado at the same time haddana xiriirkoodu ay ka wataan telefoonkooda iyo wax weeyaan meel walba ay social mediadooda ku leeyihiin inkastoo uu ku fiican yahay jacaylku in la wada joogo laakiin haddana dantu markay noqoto wax weeyaan danta بعد الظروف بدنا كحيران درادي كين كريم فاميليا قار عائلة وذا نولان وسكودن كوذا نولان قار كود قدال بكم دوبان وحويان وإسي مادان يو إسبوتي قابل دعوة
brogram ay isku dhoofiyaan qaab lottery ah qaab waxa weeyaan William Argey maya Allah يعزك الله يعزك waqti badanna wuu soo bilaabay inuu wax duubo waana professional waxa weeyaan qofka inuu wax duubo afjooga looma adeega laana hadlaa isuka kusoo dhow maxaa leedahay hal iyo labo safar الله يعزك الله يعزك ما لك أنا حاليا بنا متقنا نين أحد سفر كإمادة بناك حتى إذا أدو يبيح القديم معاه يبي صوت الشتاق والماشي يقبضه ماشي عيوب يقبضه نيو يقبضنا دبالة تاني نان سفر كإمادة ماشي أنا أسيبك هذا حرام على الوا إمادة أتريشنا وفرح سنتهاي هذا وخنع سنتهاي مدة دير أنا أقول سجيني حد إنجوي كورة سيد دريم موسى أنت حتى وريس نخفتها وريس حتى أنت يقول إنجوي نموت مذاي شادورة دريشة هي سيد دريم هذا horta aniga جيمروسا doomiyaha madaxa ka galay saa uu caayay oo dhahay haseexani miyaa qac wuxuu taagan dalkhama goohaya saacada meel furan ma laha waxa dhan miyaa ninka adaa dhigtay حدك سو وين سوحرسا ada ii soo celiya في سيدي حرنا عليه دمشق يا ada ii soo celiya taagana caadi enjoy waaye alxamdulilah hadda wuu soo degday anagana waa faraxsanahay diyaaradana waa iska dejinaynaa sababtoo ah aad iyo aad ayuu u daalan yahay isibka ku kacay haddii kale safaniyi waa ninkan waa iska ogtahay wariya waxa ma socon deerta ما صعني لكن ودالنا enjoy aan kaa dhigaynaa girgilisaan ku geehaynaa cabirkaagaan sixaynaa عادي اوكي اوكي الزمان وعاسقاي إلهي دلي